halka warkaasina kala socotaan daawadayaal waa istuudiyaha Somali Cable oo ku leeyahay magaalada London. daawadayaal inta dunida joogto qof walba wuxuu isku dayayaa oo aad arki doontaa inuu isagu noqdo qofka ugu horeeya ee arin la yaab leh ku soo kordhiya caalamkan. hore waxa uu jiray dad iyagoo duulaya sida mishino iyagoo isticmaalaya mooto oo kala kuwa kale oo baarshood isticmaalaya. nin u dhashay wadanka Turkiga ayaa hadaba waxa uu la yimid farsamo kale taasoo loo diiwaan geliyay inay kamid tahay waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ka dhacaya. ninkan u dhashay wadanka Turkiga ayaa waxa lagu magacaabaa Hasan Kaval. Hasan waa 29 sano jir. waxa uu ku fakaray inuu kamid noqdo dadka dunida ku soo kordhiya waxyaabaha mucjisooyinka ee aan dhici karin ilaa qofka uu marka hore iska sameeyo. waxa uu samaystay kursi saaloota ah oo guryaha saalootooyinka lagu fariistaa oo guduudan. waxa uu ku xiray birtaasi waxa sidoo kale uu ku sii xiray TV yar. waxa uu ku xiray baarshoodkii celin lahaa kursigaas. kadibna waxa uu la tagay buuraha la yiraahdo Babala ee ku yaala gobolka la yiraahdo Kungla oo ku yaala koonfurta wadankaasi Turkiga. haddaba markii uu halka tagay ayaa suxufiyiintu waxa uu sheegay inuu sameyn doono arin mucjiso ah. mid ka mid ah buuraha ugu dhaadheer goobtii uu joogay ayaa laga soo tuuray isagoo dul heehaabayay badda halkaasi ku taala. waxaana la sheegay in ninkan uu dhigay taariikh ah isagoo duulay ilaa 1700 oo mitir hawada u duulayay. waxaana la sheegay ninkan intii uu saarnaa kursigiisa inaanu qabin walwal badan suuna aanu ku xirnayn celinaya. waxa sidoo kale ninkan la sheegay inuu kabaha iska bedelayay kaba cusub uu gashanayay lows iyo daanga iyo uu iska cunayay isagoo uu soo muujinaya qof jooga gurigiisa oo kale oo TV-giisii daawanaya. waata hadaba daawadayaal Hasan Kaval waxa iminka loo aqoonsaday in uu kamid yahay dadka dunidan ku soo kordhiyay waxyaabaha mucjisada leh ee aan cid kale iyaga uga horeyn oo uu markaa noqday qofkii ugu horeeyay. daawadayaal warkii waad kala socoteen istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London. waa naga inta anigoo Cabduqaadir Nadaara ayaa idin la socodsiinayay. inta aan mar kale kulmayno war mid kan lamida sida iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.